ومحي ديسكود وابلكيشن أما وبلاتفورم كون صورة جلينية إن تستوس uga ciyaartid saaxiibkaaga waa markii loo isticmaalayo gaming ahaan waana ujeedadii ugu weyneed ee loo soo saaray application-kan sida loogu ciyaarayay gameska dadku waxay barteen faa'iidada uu leeyahay dhanka waxbarashada labadii sano u dambeeyay kobciye ahaan waxaan isticmaalaynay application-ka Discord ayaan isticmaalaynay soo waa inaad haysataa application-kan haddii aad ka mid tahay community-ga kobciye skills gaar ahaan kobciye crypto forum Discord-ka waa application-ka aan ku qaadan doono casharradeena live stream-ka iyo falanqaynta suuqa iyo barnaamijyada kala duwan soo waa inaad heshaa application-kaas oo aad taqaanaa sida loo isticmaalo haddaba waxaan ku tusinayaa sida loo isticmaalo application-kan ila soco bilow ilaa dhammaad ugu horreyn waxaa imaanaysaa Play Store-kaaga ayaa imaanaysaa Play Store markaa gashid qaybtan searching-ka ayaa ku qoraysaa Discord ayaa ku qoraysaa Discord markaa qortid aniga waa ii degsan yahay oo installed ayuu yahay marka meesha aniga ugu qorayo open-ka adiga wuxuu ku qorayaa install waa haddii uusan ku degsanayn ana marka maxaa leeyahay open ayaan leeyahay open markaa dhaho sidaan ayuu ii soo saarayaa barnaamijka haddaan ka fiirino soo og yahay application-ka markii uu banaanka yaalo sidaas ayuu og yahay marka ku dhufanaynaa markaan ku dhufano waxay noo yaala meesha laba badhanka koowaad waa register waxaa loola jeedaa qofka cusub ee aan account ku lahayn Discord inuu iska diiwaangeliyo iyo login oo loola jeedo in qofkii account ku lahaa uu halkaas ka galo marka maadaama inagu aan ku lahayn wax account waxaa leenahay register ayaa leenahay marka register markaa dhahno waxaana la siiyay laba optionka koowaad oo inaan isku diiwaangelino telephone number iyo inaan isticmaalno email marka waxaan isticmaalaynaa email-ka ayaan isticmaalaynaa anaga email-ka waa geliyay waxaa leedahay next ayaa leedahay next markaa dhahdid meesha waxaa kugu qoran display name maxaa loola jeedaa display name-ka waxaa waaye magaca soo muuqanaya markii dadka kale ay ku arkaan ee loola jeedaa haddaba magacaas soo muuqanaya waa magacee marka inagu waxaan ku qoranaynaa tusaale ahaan kobciye tijaabo aan iskaga qoranaynaa marka anaga kobciye tijaabo kobciye tijaabo aan iskaga qoranaynaa okay kobciye tijaabo markaan dhahno waxaan leenahay next ayaan leenahay marka okay hadda wuxuu inoo soo bandhigay username iyo password inaan sii samaysano marka automatically display name-ka ayuu akhrinayaa marka hadda haddaan ku dhufano username-ka wuxuu leeyahay waa is okay waa available ayuu leeyahay okay waliba wala sii talinayaa marka password aan samaysanaynaa username-ka sidiisaan u deysanaynaa number ku dirsan kartaa magaca dheeray kartaa marka password-ka ayaan samaysanaynaa password-ka waa samaysanay waxaan leenahay next ayaan leenahay marka waxay noo soo baxaya taariikhda aan dhalanay inaan meesha gelino taariikhdan soo saxanaynaa taariikhda waxaan ka dhiganaynaa tusaale ahaan bishii August 25-keeda nooga dhig sanadka waxay nooga dhigaysaa 1995 baa nooga dhig confirm aan dhahno marka intaas tiraadid waa inaad check saartaa calaamadan oo in aad aqbashay taariikhda iyo waxa soo sameeyay inay sax yihiin marka waxaan leenahay create account ayaan leenahay okay kadib waxaa la yiri bini aadan miyaa tahay waan xaqiijinayaa marka confirm si aan bini aadan aan nahay wax xaqiijino waa inaan marnaa status scan okay waxay noo soo baxay lambaradan waa isku aadis tusaale ahaan waxaa lagu yiri fadlan jiid yani calaamadda taala midigta si aad yani line-ka u dhamaystirtid okay
meesha marka waxaa yaala lambar 1 ilaa iyo lambar 5 baa yaala marka midka laga hadlaa waa kan marka midigu yaala dhinaca maaragtay bidixda ayaan u jeedinaa marka meesha u dhaxaysa lambar 3 iyo lambar 5 ayuu leeyahay halkaas ayaan ku buuxi doonaa waa kaasa okay kadib maxaa leenahay verify ayaan leenahay verify markaan dhahnay account waan loo sameeyay not no ayaan leenahay escape iska dheh okay dadku inay kusii raadi karaan haddii kala raadi kartaa escape qaybta marka waa profile picture waaye sawir caadi waa saaran kartaa adigoo balaaska taabanaya sawirada kugu jira gallery-ga mid ka mid ah ayaa saaran kartaa anaga marka hadda waxaan saaranaynaa wax la yiraahdo avatar ayaan saaranaynaa matalayaal ayaan saaranaynaa oo sawirka matalaya qofka then waxaan leenahay next ayaan leenahay marka next markaan dhahno account-kii oo inoo samaysan yahay oo haddeertaan waxaa inoo dhiman inaan aadno serverka kobciye skills ugu horeyn waa inaad heshaa serverka kobciye skills adigoo server helin kuma soo biiri kartid community-ga dhinaca Discord-ka account-kaaga saan waaye qaleel waaye waxa meesha kuma yeelaan marka waa inaad heshaa server waa inaad heshaa marka serverka saan ku raadinaynaa serverka haddii aad ku aragtid Telegram-ka waa linki haddii lagu soo dhigo WhatsApp group waa linki saas u raadaysaa marka anaga waxaan ka raadsan doonaa dhinaca WhatsApp aan ka raadsan doonaa serverki waa kana inaan ku biiraan rabaa marka linkiga aan ku dhufanaa linkiga aan ku dhufto waxaan leeyahay accept invite ayaan leeyahay accept invite marka dhaho waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay oo haddeertaan waxaan si toos ugu jiraa serverka kobciye skills ayaan si toos ugu jiraa serverka marka uu ballaaran yahay qolal fara badan buu leeyahay marka qolalkaaga haddii ardayda ka mid tahay halkaana kuu soo galayaan oo halkaas ayaa ka arki kartaa tusaale ahaan haddaan fiirino qoladana ku qoran tahay batch 2 offline students haddii aan furno kale qaybtaan ma geli karno sababta waxaa waaye waa inaan soo buuxinaa verification sameynaa sidoo kale shuruudahan aan aqbalno shuruudahan waa shuruudo gaaraya ilaa iyo 11 shuruudood ay gaarayaan marka waa inaan aqbalnaa ugu horeyn marka intaan verify-ga dhihin waa inaan horta marka hore waa inaan verify sameynaa verify leh verify markaad sameysid send email okay emailki waa aan kuu diray koodkaas emailka aadaynaa marka waa kana fariinta noo taallaa inaan kaga baahan yahay verification hoosa imaanaysaa verify email ayaa ku dhufanaysaa marka verify email waxaa ku dhufatid Discord-ka toos noo geedi doonaa continue to Discord ayaa leedahay si lagu xaqiijiyo bartii ay kuu soo celiyay hoos ayaa imaanaysaa marka hoos markaad timaadid check-ga kuu saaran yahay complete-ka marka awal active ma ahayn laakiin hadda active waaye sababtan waxaa waaye verification-ka aad samaysay ujeedada aan u sameynana waxaa waaye in scammers-ka tuugada iyo maaragtay boodadku aysan soo gelin dadkana aysan dhibaato u geysan marka waxaan kaa codsanaynaa inaad sharcina ilaalisid qodobadan 11-kana si fiican u akhrisaa complete ayaan leenahay marka complete markaa dhahno sidaas ayuu account-kii noogu samaysan yahay verification noogu yahay haddii aad ku jirtid qolalka ardayda mar walba hoos ayuu ku imaanaya waa inaad la socotaa tusaale hadda qolkii hadda naga diidayay inuu furmo hadda uu noo furan yahay haddaan ku dhufanno codka noo furmaayo soo jeedid join voice ayuu leeyahay waxaan isla fiirinaynaa sida screen share-ka u furo lahayd kor ayaa u qaadaysaa kadib waxaad dooranaysaa share screen waxaad dooranaysaa start now ayaad dooranaysaa sidaas ayaad ku share gareeday screen-ka